samaynta iyo weliba isticmaalka xalwada ayaa ku sii fidaysa wadamada dariska la ah Soomaaliya. Soomaalidu waxay isticmaalayeen muddooyin fara badan habka loo sameeyo xalwada. Farsamadan oo aan ahayn mid lagu barto iskuulada ayaa ah mid jiilba jiil u gudbiyo. Nidaamkan waxa loo kala dhaxlaa waxay ku xiran tahay macalinka. Anigu hadda markaan macalin ahay anigu waxaan ka soo dhaxlay nidaamkan ilaa nin la dhahayo Arab oo Jaaburi. wuxuuna dhalashiisa ay ahayd Nyamani. kadib anigu markaa professional noqday shaqada si fiican u bartay aniga gooni ahaan shaqadii aan ula baxay shaqadii markaan gooni ahaan u baxsaday anigu waxaan samaystay arday fara badan oo shaqadii aan bari karo ardaydii qayb kamid ah shaqadii waan baray magaaladan ku dhex siiday nin walba shaqo gooni ah professional si uu shaqaysto aniguna marka shaqadeedii professionalkii wali waan wata shaqaale kalena waan sii qora waan sii shaqo geliyaa dad badan oo waan sii bara ajnabi ah ahaado shaqaale badan oo ajnabi ah iyo dad badan oo Soomaali ah waxaad la kulmaysaa sidaad gadaasheeda ka muuqataba kuleel iyo qiiq ku salaamaya laakiin goobtani waa goobta laga soo saaro xalwada dhadhanka macaan leh ee dadka Soomaalidu xilli farxadeedka ay ku qaataan sheekadooda waxaanu la kulmi doonaa shaqaale iyagu ku dhex jira dabkan oo iyagu soo saaraya xalwada iyagoo waliba ka faaloon doona dhibaatada laga maro iyo waliba siday ugu faraxsan yihiin inay ka shaqeeyaan goobta sidan aadka ugu kulul si kasta aan kuleel ugu dhex jirno waxaan ku ilownaa farxadda dadka ay cunaan markay ku faraxaan oo dadkina ay soo jiidashadooda iyo farxadooda anagana soo gaarto wicitaankoodii koolinkoodii iyo farxadoodii iyo xafladii markay cunaan markaynu soo gaarto kuleelkii ma dareenno waxaan sii dareennaa inaan shaqaysan karno waxaan siina in aan heli karno farxad aan ku shaqaysano kor si aan ugu sii socono cunista xalwada waxaa bartay dad aan Soomaali ahayn waxayna ku socotaa in xalwad Soomaaligu ay gaarto wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika dad waxaan helnay Soomaali aan ahayn oo hadda waliba sayd u sii barteen sida hadda dadka Kukuyada amal way la qabsadeen way barteen qowmiyadan kaleeto oo Tansaaniya ka imaadaan way qaataan sida oo Langata amal Tansaaniya haduud waan gudubsina sida Uganda haduud waan gudubsina sida gobolada kale Nyeri iyo dhulkan kalena gabdho oo hadda waxa jiraan Kukuyo oo noo imaadaan qaataan ayagana goboladan yar dhow sida had shacabka adiga Kenya si fiican bay oo la qabsanayaan muddo markii la kariyo xalwada oo dabka laga soo dejiyo waxaa loo gudbiyaa dukaamo lagu yaqaano iibinta macmacaanka dadka Soomaalida ayaa si weyn u aaminsan cunista xalwada qayb aaminsan haddii ay meel ka murugcdaan oo xalwad cunaan inay bogsanayaan marka aad bay u isticmaalaan meel walba farxadi ka jirto Soomaalidu waa dad balaaqa badan way siyaartaan siyaaradaas marka guriyaha waa la geeyaa kiilo 2 3 4 ilaa iyo 6 walba dadka intay tirado u tahay marti sharafta aroosyada munaasabadaha kala duwan ayaa si weyn loogu arkaa macmacaanka ay xalwada ugu horeyso halka ay caan ku tahay hadalhayska Soomaalida dhexdeeda goorma ayaan xalwadaada cunaynaa oo macnaheedu yahay goorma ayaad gursanaysaa